kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya maxaa ka jira in ciidamada gaarka dawladda ay ka xiseen gudoomiyaha Cali Yare oo Muqdisho ay ku xireen warar kala duwan oo ka soo baxaya xariga Cali Yare iyo ciidamada dawladda ka xisay oo la ogaaday halka ay geeyeen maxaa lagu heesaa Cali Yare miyaa ku dambeeyay dagaalkii lagu qaaday Boqor Madow iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho iyo gudoomiyihii siyaasadda ee gobolka Banaadir oo markan fadeexa weyn wajahaya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran ayna ku bilaabnay Cali Yare ayaa la sheegay in ciidamo gaar ah ay ka xiseen gurigiisa ku yaala Muqdisho warar soo baxaya maanta ayaa sheegayay in ciidamada sida gaarka u tababaran dawladda Soomaaliya ay ka xiseen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Cali Yare xogta la faafiyay ayaa ahayd in ciidamadan ay gaadiid dagaal iyagoo wata ay qafaal waxa ay ku wateen Cali Yare oo markii baaritaan war lagu sameeyayba ayna ku ogaaneen inaysan jirin ciidan kaxeeyay gudoomiyaha balse lagu waday amar ka soo baxay billa Soomaaliya dadka ka agdhow Cali Yare ayaa inoo sheegay in wararkaas ay yihiin kuwa wax ka jira isla markaana xubno mucaaradka dawladda ka ah ay dacweeyeen Cali Yare oo Robel lagu dacweeyay kadib markii la sheegay inuu ka dambeeyay weerarkii habeen ka hor lagu qaaday hotelka Barmadow ka degan yahay gudaha magaalada Muqdisho xogaha kale oo dhaanka wararka helaya waxa ay tilmaamayaan in Cali Yare loo qaaday xarun saldhig u ah ciidamadan gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana halkaas uu ku xiran yahay maanta loona weydiinayo su'aal la xiriira waxa uu ka og yahay weerarkii lagu qaaday hotelka Boqor Madow ka deganaa gudaha magaalada Muqdisho xogta sidoo kale waxa ay sheegaysaa in Cali Yare lagu heeso eedeymo waaweyn oo la xiriirta kicinta shacabka Muqdisho iyo in qaarijin uu ka baaday Boqor Madow isla markaana uu ka dambeeyay ciidamo Cali Yare soo diray sidoo xogta la helay ay tilmaamayso Cali Yare hadda waa musharax u taagan kursi xildhibaan golaha shacabka ah hase yeeshee waxa uu markan wajahayaa eedo waaweyn oo dhanka dawladda federaalka ah uga imaanaya Cali Yare oo si weyn taageero u ahaa farmaajo nabadiina oo dhowrkii sano ee ugu dambeeyana baraha bulshada ka difaacayay ayaa gabagabadii dawladda farmaajo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir iyadoo hoosna loo dhigay meeqaamkiisa iyo awoodda gobolka uu ku leeyahay balse Cali Yare ayaa markan u xubsiibanayay dhanka iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka isagoo raadinaya kursiga uu ku fadhiyo Mahad Maxamed Salaad odayaal iyo waxgarada u dhashay beesha Hawiye ayaa la sheegay in Cali Yare warqada ashtika ay ka gudbiyeen waxgaradkan ayna u direen Roble taas oo la xiriirta in uu damacsan yahay in uu ceebeeyo isla markaana uu fashiliyo beesha ama beelaha Hawiye maadaama isaga iyo askar ay weerar ku qaadeen hotel uu deganaa Boqor Madow sida xogaha la helay ay tilmaamayaan xaaladda ayaa hadda isbedelaysa Cali Yare waxa uu ku sugan yahay marxalad jahwareera sida xogaha la helay ay tilmaamayaan Cali Cabdi Wardheere oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay gaar ahaan Muqdisho ayaa sheegay inuu ku dhow yahay laba guul oo mid ay tahay kursiga xildhibaannimo ee hoob 100 iyo sidoo kale 47 oo hadda ma Salaad uu ku fadhiyo iyo guusha labaad uu sheegay inay tahay mid qarsoon taas oo loo fasiran karo in qorshihiisu uu ahaa ka gungaaridda hadalkii Boqor Madow uu ka yiri Al-Shabaab iyo taageerada uu muujiyay gudoomiye Cali Yare ayaa aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo oo dadaal iyo dagaal dhinaca baraha bulshada ah ugu soo galay doorashadiisii ka hor iyo kadib intaba markii dambe se lagu abaalmariyay xilka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir walow awood fiican uusan ku lahayn gobolka oo Cumar Filish uu hoos u dhigay awoodda Cali Yare ee amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yare ayaa laga kaxeysay guriga ka degan yahay Muqdisho oo ku dhow agaarka billa Soomaaliya waxaana la geeyay xarun ciidamadan gaarka ah ay ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho eedaha kala duwan oo wajahaya ayaa ugu waaweyn weerarkii shirqoolka ahaa ee Boqor Madow ka baaday iyo sidoo kale hanjabaado uu diray mucaaradka Cali Yare taas oo keentay in Robel looga ashtikoodo ninkan gobol ka tirsan isla markaana ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay amarkii waxgaradka Hawiye iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah dalbayna in la soo qabto Cali Yare oo hadda xabsi guri ku ah gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
xogta sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in caliyare cali rabo in lagu sii daayo qaab damiin ah maadaama la sheegay in falal waaweyn ugu kacay waxaana hadda socota waawaantii hadalkii ugu dambeeyay ee lagu soo deyn lahaa caliyare cali oo ku xiran gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka gobolka banaadir oo ka tirsanaa ninkan weli kama hadal wararkan sheegaya in la xiray caliyare cali taas oo mar kale muujinaysa in gobolka banaadir waxba uusan ka ahayn caliyare islamarkaana cumar filish isaguba aysan iska warhaynin oo awoodii gobolka ee caliyare hoos loo dhigay islamarkaana gudoomiye cumar filish dhammaan shaqadii gobolka isaga uu hoos keenay caliyare cali ayaa sanadkan dadaal weyn ku bixinaya sidii uu ka heli lahaa kursi xildhibaan oo hadda mahasalaad uga fadhiyo waxaana jirta xurguf weyn oo ka dhexaysa mahasalaad iyo caliyare inkastoo leeyahay caliyare cali waxa uu wata villa Soomaaliya kursiga xildhibaanna wuu heli karaa haddana marka loo fiiriyo isaga iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor xiriir fiican kama dhexeeyo waana sababta muujin karta in caliyare kursigaas uu heli karin oo mar kale dib u soo laaban karo Mahad Maxamed Salaad balse mahasalaad dhankiisa villa Soomaaliya mucaarad weyn ayuu ku ahaa haddana waxaa suuragal ah in kursigaas uu waayo gudoomiye caliyare cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir ayaa sidoo kale waxqabad aan muuqan ka geystay gobolka banaadir iska daa sidoo kale shaqooyinka gobolka u igmaday waxa uu waqtigiisa u badan ku bixiyaa baraha bulshada isagoo kale mucaaradka u jawaabaya eedamana u jeedinaya taas oo ku muujinaysa in gudoomiyahan siyaasadda ay waashay uu gabay hawshii shaqo ee gobolka banaadir loo xil saaray iyo sidoo kale waxa ka qabashada xaaladda ammaan ee gobolka banaadir iyo si guud magaalada muqdisho caliyare cali ayaa xilli kasta baraha bulshada ku difaaca dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo inkastoo bilihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar kala duwan oo sheegaya in caliyare iyo villa Soomaaliya ay kala furteen isla markaana gudoomiye cali maalmihii ugu dambeeyay uu ahaa mucaarad qarsoon oo Farmaajo iyo isaga dagaal uu ka dhaxeeyay sidoo kale caliyare cali iyo qoorqoor ayaa ku dagaalamay ama ku kala tagay siyaasadda kadib dagaalkii gurceel ahlu sunna looga saaray oo caliyare cali uu kamid ahaa siyaasiyiin dhowr ah oo soo jeediyay in dagaalkaas gurceel aan lagu qaadin balse ahlu sunna la hadlo iyadoo qoorqoor hadalkaas uu ka xumaaday isla markaana caro weyn uu ka qaaday taas oo hadda la dhihi karo caliyare kursigiisa xildhibaannimo qalqal weyn ayuu ku jiraa kursiga hoob 147 waxaa 8 sano ee ugu dambeysay ku fadhiyay Mahad Maxamed Salaad haddana gudoomiye caliyare cali ayaa rabay in ninkaas uu bedelo Mahad Salaad oo ka tirsan xisbiga Cashir Maxamuud ayaa rabaa in uu dib u soo laabto isagoo qoorqoor ka shukaansanaya kursigaasi inkastoo hadda uu hoos u sii dhacayo hamiga iyo hadafka villa Soomaaliya kursigaas ay ka lahayd iyo saaritii caliyare cali ayaa haddana waxaa muuqanaysa in villa Soomaaliya aysan ku dhacaynin markan ay soo saarto caliyare maadaama fadeexado kala duwan oo waaweyn uu dul hoganayo wararkii ugu dambeeyana waxa ay sheegayaan in magaalada muqdisho hadda ay ka soconayso qabanqaabada iyo wadahadal lagu soo deyn lahaa caliyare oo u xiran ciidamada gaarka ah ee dowladda iyadoo la sheegay in rooblow ka dambeeyay xarigiisa kadib markii dacwadda uga timid ninkan siyaasiyiintii odayaasha beelaha hawiye oo dambiye culus ayaa lagu eedeynayaa caliyare guud ahaan daawada la niginta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo